hagaag waa loo socdaa hor waa loo sii hoydaa hadal waa la hindisaa haadii kale waxaan lahaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar oo aanu ku ururin doono qaybo ka mid ah dadaaladii iyo waxqabadyadii xildhibaan sacdiye carays ciise kaarshe oo uu dhalay abwaankeenii weynaa ee soomaaliyeed carays ciise kaarshe allah u raxmade. tabcaan gooraanahayo soomaalidu kala tag iyo tafaraq ay taagan tahay 13 wiil ilaah baa toosiyo tala nala waafajo tubtiiba nala tuso tiriig baa noo baxo xorriyad tamaan helnay ilaah baa taajire tallaaba aan qaadnay iyo tusmadii soomaalidiyo tolmoona calankayagu haadii kale waxaan lahaa taariikhdaynoo dhunto aan tiiranyaysannahay habeenkan taagnay baa tigaad reerku u baxay ilaah baa taajire tallaaba aan qaadnay iyo tusmadii soomaalidiyo tolmoona calankayagu haadii kale waxaan lahaa wixii kugu taxalluqo kollaba aan laga tegayn waa in laga taxadare ilaah baa taajire tallaaba aan qaadnay iyo tusmadii soomaalidiyo tolmoona calankayagu haadii kale waxaan lahaa timaha ruux tirin karo dhultaakeeyaa ma jiro adduunkuna waa tabtaa ilaah baa taajire tallaaba aan qaadnay iyo tusmadii soomaalidiyo tolmoona calankayagu haadii kale waxaan lahaa tagoog xoogliyatun weyn tabar baan yeelano 7 goortaan jiraan adduunkii tiigsanee ilaah baa taajire tallaaba aan qaadnay iyo tusmadii soomaalidiyo tolmoona calankayagu haadii kale waxaan lahaa abwaan caanaho ciiddiisa hooyii calankiisa jecel oo cabiraadda maansada aan cidi ku gaarayn carays ciise kaarshaa caadil kaa abuuro cunuqdiisa tahay adi aniguna ciisiya sharaf ubax cayn bacayn iyo midabada casuustiyo anigu iyo cishiya sharaf ayaan kugu cidaadee waxaan leenahay waxaanu nahay culummadii fankan ka jooga caawa oo alla u naxariisagii aabbaha ka mid ahaa marka waxaan ku leeyahay si gaar ahaaneed oo kaliya laaba sacdiye soo dhawow. aabbaha si loo jeclaa I think torjiga ayaa wadaa oo calankii aabbaha kugu wareejiyey oo ay mataqaanaa midnimada Soomaaliyeed. aabbaha nin qaran u ahaa, aabbaha nin qarana oo ummadda Soomaaliyeed aad u jeceshay ayuu ahaa. marka isaga ayaa mataqaanaa lagu xushmeenayaa iyo adiga waxaad gaartay shakhsiyad gabdhaha Soomaaliyeed really waxa u tahay role model. sababtu waxaa tahay member of parliament waliba fadhiya qaybta cadaaladda. marka waxa weeye mas'uuliyad baa ku saaran. xildhibaan sacdiye carays ciise kaarshe waxaa horey mar loogu magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka ee Soomaaliya. haatanna waa mudane ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee xilligoodu dhamaaday. muddadii ay shaqaynaysay xildhibaanada waxyaabihii uu qabsamay waxaa ka mid ahaa qabashada kulamo wacyigelin ah oo ay la yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan qaybo badan oo ka mid ah gobolada degmooyinka iyo deegaamada Soomaalida. aynu ku horeynay magaalada Muqdisho waxay xildhibaanadu kulamo kala duwan la qaadatay qaybaha bulshada sida ururada haweenka, dhalinyarada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho. waxayna ku boorisay inay qayb lixaad ka qaataan ammaanka iyo horumarka dalka, inay iska ilaaliyaan falalka xunxun ee tahriibka iyo xagjirnimada. sidoo kale xildhibaan sacdiye carays ciise waxa ay kulamo ballaaran la qaadatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. kulankan maanta ay la qaadatay xildhibaanad sacdiye carays ciise kaarshe oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda federaalka dhawanahanba ku sugnaa magaalada Kismaayo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan waxgaradka iyo dhalinyarada iyo qaybaha bulshada magaalada Kismaayo iyo haweenka ayaa waxa ay maanta kula qaadatay gudaha magaalada Kismaayo iyadoona kala hadlaysay sidii dadka ku dhaqan bulshada magaalada Kismaayo qaybahooda kala duwan ay u midoobi lahaayeen isla mar ahaantaana ay u taageeri lahaayeen maamulka curdanka ah ee Jubbaland.
ugu horreyn ayaa kulankaasi waxaa hadallo kookooban ka soo jeediyey qaar ka mid a marti sharaftii ka soo qaybgalay kulankaasi iyadoo qaar ka mid a haweenkii ka soo qaybgalayna ay halkaasi ka soo jeediyeen ay ammaan ballaaran u soo jeediyeen madaxda sare ee dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulka jubbaland waxaana ugu horreyntii hadalkaasi ka hadlay maxamed siciid cali dhagaxtuur oo isagu ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Kismaayo. waxaan leenahay sacdiga ku soo dhawow dhulkaagii dadkaagii walaalaha tolka magaaladaadii oo laga jecel yahay falyatafadal sacdiga. ciise kaarshe waxay ku dhalatay magaalada Kismaayo aabaheed wuxuu ku dhashay Kismaayo la helay aeroboortka agtiisa awowgeed ciise kaarshe Jubbaland waa qof ku ah taariikh dheer oo soo jireen oo aad u qodo dheer waxaan yiraahdaa gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan waxay ku tahay qof aad iyo aad ugu aqaani waxaan leeyahay sacdiyo mar labaad mar saddexaad mar afraad mar shanaad boqolkiiba boqol ku soo dhawow sacdiyo. calanka Soomaali weelkee bayaanka dhigay oo boorka ka qaaday beesenka lagu hayaa xasan sheekh maxamuud amaan wadagooganta axmed islaam weeye madaxweynaheena culus mandeeqno curatay maankeenu waa tamaan mandeeqno curatay maankeenu waa tamaan madaxda Jubbaland mahad baan u celinayaa. ugu dambeyntii ayaa kulanka waxaa soo afmeeray xildhibaanad Sacdiye Carays Ciise Kaarshe oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka waxaana ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay ammaanka xilligan ka jira magaalada Kismaayo isla mar ahaantaana baahiyaha kala duwan ee ay shacabka soo gudbiyaan ay u gudbin doonaan baarlamaanka iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa dowladda federaalka. marka waxaan jeclaan lahaa waxaan hadda u jeedaa dhalinyaro aad u firfircoon oo meesha fadhiso isna dhaynaan hadda dhalinyaradan baa meesha Kismaayo joogto oo xaadir ku ah xukuumaddiina cid wax raadsanaysa ama wax maxay ka baadi goobanaysa midna ma jirto marka walaalayaal hadalku kuma badanayay aad baan idinku faraxsanahay aad baana idinku mahadinayaa magaca waxaan ku hadlayaa maxay ahayd ii sheeg xildhibaanadeena Soomaaliyeed ee federaalka waxaan ku hadlayaa magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan ku hadlayaa maxay ahayd magaca ra'iisul wasaaraheena magaca maxay ahayd waxaan ku hadlayaa baarlamaankeena gudoomiyaheena iyo gudoomiye ku-xigeenkeena anoo intaayo magacaan ku hadlayay xukuumadda iyo wasiirada iyo in allaale inta xil u hayso dowladda dhexe oo aan salaadna idinkaga wado aan magacoodana ku hadlayo waxaan idin ballan qaadayaa baahida aad qabtiin inaan anigana ka dacwoodo baarlamaanka dhexdiisa aan meel walba sida aan maxay ahayd Puntland aan u dhigo oo iraahdo dhibaatadaas baa jirto oo xuquuqdiina aan u raadiyo inta yarto aan halka fadhiyo hadduu Ilaahay raali ka dhigo adinkana aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo. geesta kale xildhibaanadu waxa ay booqashooyin kormeero iyo kulamo isdaba joog ah ku gaartay gobolada iyo degmooyinka Puntland kuwaas oo ay u koorgalaysay isla markaana ay qoraallo ka sameeysay xaaladaha nololeed ee dadka ku dhaqan deegaamada iyo xoolaha. markii ay xildhibaanadu ka degtay magaalada Gaalkacyo waxa ay safar ugu baxday degmooyinka iyo deegaamada hoos yimaada gobolka Mudug xilli ay socotay dhismaha wadada dheer ee wadaagsin oo isku xirta magaalada Gaalkacyo deegaanka Jeexdin godad gacna fale ceelbardaare tuulo guuco balibusle seemade jariiban iyo deegaan xeebeedka Garacad. wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Mudug oo ay ka mid tahay xildhibaan Sacdiye Carays Kaarshe oo ah xildhibaanad ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ganacsato iyo odayaal ayaa waxa ay booqasho ku tageen deegaanka gacma fale oo 1 kiiloomitir ka xigta dhinaca bari ee magaalada Gaalkacyo waxayna wafdigaasi booqdeen eel cusub oo halkaas laga qodayay. wafdiga ayaa markuu kormeerka dhameystay waxa ay geed hoostiis kula shireen odayaasha deegaankaas waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay Bashiir Saabuun oo ka mid ah odayaasha deegaanka gacma fale waxaana wafdigan u warbixiyay deegaankan iyo sida noloshiisa ay tahay. matoorka hadda qabyada ah haddii uu helo waastooyinkii iyo haantiina waxaanu rajaynaynaa sida deegaamada oo kaleeto oo kale hadda ay yihiin inuu noqdaanu aad u rajaynaynaa weliba ceelka kan waagii dalka la joogi jiray wuxuu ahaan jiray ceel runtii ka muhiimad weyn hadda ceesha ku dhow oo dhan oo dadku ka jecel yahay biyihiisa iyo daaqiisa labadaba baahideeda kuwaad marka hore waxaan u sheegaynaa alle isaga unbaa kaafiyi kara oo dabooli kara hadday ka soo hadho waftigiina sharafta leh oo federaalka nagala jooga maamulka Puntland heer gobol nagala jooga
waxaan idin u soo jeedinaynaa in aad wax ka qabataan oo qolo walba kaalinta ay ku aadan tahay wax ka qabato oo aad u soo jeensataan. injineer Cumar Cabdulle Maxamed oo kamid ah ganacsatada gobolka Mudug oo waftigan la socday ayaa halkaas ka hadlay. Ceelkaanu wuxuu qodniinkiisu bilowday 1 bishii koowaad sanadka 2013 wuxuuna dhamaaday 2 bishii labaad. hadda waad aragtaanoo waa laga cabayaa runtiina hawl badan baa u hartay ama ha ahaato tii markii hore shirkaddu ay qoday lacaga ay leedahay annagu community ahaan waxaan buuxinay lacagtii hore markii hore aan siinay ee shirkadda qodaysay oo ahayd 20,000 ayaan bixinay oo muxuu ahaa inta dambana maamulkana markii horeba waa noo ogaa ama ha ahaato midka gobolka ama ha ahaato midka degmadu wili waxaan ka rajaynaynaa marka wixii kaleeto meel kasta ay la kaashadaan in hawshaas ay buuxiyaan baahi badanna waa ka jirtaa ceelku tuubo ma looga cabi karo saad u aragteen wuxuu u baahan yahay kayd meel lagu kaydiyo wuxuu u baahan yahay motoorka hadda yaalla ma aha asagu ceelku ma leh laakiin inta hadda ku jirta oo kaleeto tuubooyinka iyo bamka iyo panelka iyo cable-ka asaga iska leh. gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo waftigan hogaaminayay ayaa isaguna halkaas ka hadlay. meesha hadda gacna fale uu maraya dayactirkii wadada wadaagsin la sameeyay ee dadka deegaanku ay dhiseen waa meesha uu ku eg yahay dhawaan xoolo badan ayaa loo soo ururiyay iyadana mar dhow ayaa laga bilaabaya wadada iyadoo ay meel waxa wadada la dhameeyay oo halkan wadadu soo gaadhay aan la deganayn maanta iyadoo la degan yahay oo camiran oo ceel leh oo xoolo ka cabayaan hadda kaalintii wadadana waxa la idin ka rabaa inaad ka qayb qaadataan oo xoolaha u soo arooriyay iyo xoolaha deegaanka degan aad isu noqotaan fariintaana waa la idin soo gaarsiiyay wadada sidii kaalinta aad ku lahaydeen aad uga qaadan lahaydeen socdaalku waxa uu ahaa kormeer wixii wax qabada oo haddii ay gobolka ahaan lahayd iyo haddii hay'ad ahaan lahayd iyo haddii dowladda federaalka ahaan lahayd intuba wixii loo qaban kara dadka iyo dunyada deegaankan ku dhaqan insha Allah waxaan rajaynaynaa waa loo qaban doonaa. ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadashay xildhibaan Saacadiye Carays Kaarshe. waxaan rajaynayaa odayada maanta halkan fadhiyo iyo madaxda meeshan fadhiso oo ka dhawaajiyay dhibaatada ilaa intan yarta la soo gaarsiiyay la gaarsiiyay dad badan oo qurba joog ah oo aniga aan kamid ahay inay jiraan oo aan waxba ka warqabin anigu kama warqabeen xanuunkanna ma arkeen dhibaatada lagu soo sameeyayna ma ogaadeen haddaanan imaanin marka waxaan rajaynayaa qof walbaba xildhibaan oo kaliya ma ahna inta qurba joogta ahna inay yimaadaan ee dhulkoodii ku soo noqdaan ay soo arkaan dadkoodii wixii meeshii ku nool yihiin iyo waxay cunayaan iyo waxay cabayaan iyo waxay dhaqanayaan iyo xoolahoodiiba taabaan ka rajaynayaa. xildhibaanada ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay booqasho ku marisay deegaanada Puntland oo markii ugu dambeysay booqatay deegaanka Gacmo Fale. Maxamed Cabdicasiis Warsame, Somali Channel, Galkacyo. sidoo kale waxay booqashooyinkeeda ku gaartay gobolada Nugaal, Karkaar ilaa gobolka Bari iyadoona la kulantay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Cabdisamed Cali Shire qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo qaybaha bulshada. geesta kale xildhibaanadu waxay booqashooyin iyo kulamo ballaaran la yeelatay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada Ameerika, Kanada iyo Yurub waxayna kulamadaas ay jaaliyadaha la qaadatay qayb ka ahaayeen isku xirka jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo sidii ay doorkooda uga qaadan lahaayeen taabagelinta dibadhiska dalka iyo inay qurba joogto ku dhiiradaan inay dalkooda hooyo maalgashtaan. xildhibaan Saacadiyo Carays Ciise Kaarshe ayaa gobolkan Minnesota si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo magaalada Minneapolis ay ku sugneed ayna ka soo qayb gashay waliba xiliyadii 1 Luulyo ee gobolkan Minnesota looga dabaaldegayay. xildhibaanada ayaa runtii xafladani ay ka soo qayb galeen fanaaniinta reer Minnesota iyo waliba halkaasina ay u badnaayeen dumar aad u fara badan iyadoo runtii fariimo halkaasi ay ugu dirayaan xildhibaanada. qaar ka mid ah ayagoo buraanburo iyo hadallo qiimo leh halkaasi ka soo jeediyayna hadaladooda waxa ka mid ahaa. bismillaahir rahmaanir rahiim waxa sharaf ii leh anagoo dhammaan jaalida Soomaaliyeed ee quruxda badan ee Minnesota inaan si sharaf leh oo wanaag ku jirto aan u soo dhaweeyno
xildhibaanada Soomaaliyeed oo federaal member Soomaali ka mid ah Saacadiyo Careys Ciise Kaarshe la soo dhaweeyo sida maqlayseen baraamburka iyo really maata iyo sida loo jecel yahay heesa aabaha si loo jeclaa I think torjiga ayaa wadaa oo calankii aabaha kugu wareejiyay oo ay mataqaanaa midnimada Soomaaliyeed aabaha nin qaran u ahaa aabaha nin qarana oo ummadda Soomaaliyeed aad u jeceshay ayuu ahaa marka isaga ayaa mataqaanaa lagu xushmeynaya iyo adiga waxaad gaartay shakhsiyad gabdhaha Soomaaliyeed really waxa uu tahay role model sababtu waxay tahay member of parliament waliba fadhiya qaybta cadaaladda marka waxa weeye mas'uuliyad baa ku saaran oo ka saaran mataqaanaa inaad gabdhaha Soomaaliyeed 27 member of parliament 235 macquul ma waxaan dhihi lahaa waxa weeye next parliament in la helo boqolkiiba almost sida inaan gaarin wadamada Nordic 50-50 in la gaaro almost waan gaari karnaa haddaan dadaal idinkeeda ku xiran tahay intaas ka bacdi fursaddan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto oo aan Soomaaliya baarlamaankeedan aan adoo noo wakiila aan ku dirno baarlamaanku waa golaha sharci dejinta waddanka Soomaaliyeed waxaa saaran mas'uuliyad qaali ah ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay nabadda dadka shaqeeya oo waliba dadka isku keena si mataqaanaa loo gaaro nabadgelyo waarta oo mustaqbal gaarta aabaha Allah u naxariistay wuxuu yiri Soomaali waa inay kala doorataa buu yiri gobonnimo iyo gumaysi aabaha Allah u naxariistay marka hadda Soomaali oo dumarkii caawa halkaan fadhisiin iyo kuwa daawanayaba waxa way su'aasha aan halka dhamaas ka weydiino waxay tahay Soomaali waa inaan kala dooranaa qabyaalad iyo qaran kee dooranaa that is the question Somali this is the right time oo aan dooranaa qaran noqono aabaha Allah u naxariistay wuxuu ahaa my hero aniga iyo nin aan jecelahay oo la oran jiray Cabdullaahi Suldaan Timcad Allah u naxariistay those are my heroes aniga personally waxaana ka uriya wax kala maahan calanka buluuga xidigtaan ka uriya calankaas anaga wada dhaxeeya dhibaata jirta dhiiga daadanay Soomaaliya anaga waa ka soo horjeednaa anaga waxaan u baahanahay nabadgelyo iyo horumar qof walba oo Soomaaliya qurbaha mar walba waa dhaha fursad waxaan haysanaa haddii aadan wanaagooda ka shaqeynin oo aad Soomaaliya fadlan haddii aadan wanaagooda ka shaqeynin walaalayaal sharkeena ka xijaabano Soomaaliya way soo noqonaysaa waxaynu u baahan tahay dhammaanta inaan ka wada shaqeyno inaan sameeyno hal Soomaaliya oo qurux badan oo nabadgelyo ku nool waxaan ku gaari karnaa anaga taa ka shaqeyna waxaan kula talin lahaa MP da caawas oo soo dhaweysay dumarka Soomaaliya aad baa u mahadsantiin laakiin haddii aan ka qayb gelin oo mataqaanaa oo aadan mataqaanaa Mareykanka ogtiin Hillary Clinton ayaa waagii markii 2008 waxay tough campaign maray la tartamaysay Barack Obama baqolooyinka Obama campaign waxay dhaheen mataqaanaa Bill wuxuu noqday xoogaa yar macnaha ninkeeda moogtaa Bill Clinton waa nin tough campaigner marka erey tiroocaana ayaa waxay tiri if you can handle the heat better get out of the kitchen marka waxaan ka wadaa dumarka Soomaaliyeed hadda runta idin sheego macnaheedu waxa weeye haddaadan handle gareyn karin waxaan shaqo culus oo madaxweynaha mas'uulka ku saaran iska daa waxaan ka tag marka dumarka Soomaaliyeed haddaa rabtiin inaad ka qayb gashiin oo 30% ku yariye haddii aan ka qayb gal aniga hooyo ay soo korsatay am strong woman waa jeclahay macnaheedu waxaan idin sheegaa like haddii aan ka qayb galin oo aadan really aadan noqon force for good macnaheedu hadda waxa waaye ragaan blame gareynaa iyo waxaas wax shaqeynaa ma Janice waxa haysatiin waxa waaye aan ku sixi karno wixii qaladkii dhacay magarad marka waxa weeye waxaan idinku ka qayb gala oo walaasheen taageera 27 xilmano baarlamaan woman ku jira taageera aad ka warqabtiin aad Soomaali attention siisiin waddanka Soomaaliya waxa weeye yaanan ku mashquulin shakhsiyaadka madaxweynaha wuu imaadaa wuu baxaa haddaa maanta aad madaxweynaha Soomaaliya dhibsanaysid waxaan idinkaga digayaa waxa waaye Britol waxay imaan doona mid qabiilkiina marka kaas la socdo martaa marka ka fikir badana waxa badana ka fikirnaa waxa qarannimada macnaha kursigan waa wareegaa ninkii Janice Soel ayaa ku fariista qof ayaa heli doona qofkaas aan qadarino kursiga iyo qiimihiisa calanka buluuga dad baa u soo rafaaday dhiig u daadiyay Soomaaliya dhulkan weyn aan isku haysano shanta gobolka ahaan jiray maanta labadii kala tagayso waxaan ka codsanayaa dhammaanteen inaad qalbiga wanaag ku haysiin wada hadallada uga bilowda dadka Soomaaliyeed ee Turkiga mataqaanaa Somaliland iyo Soomaaliya
أنا سوماليلاند waxaan waqaana mar walba sheega dadka qabiilo badan ku nool Soomaaliland dadka British Somaliland ku nool dhalan waqaana marka waxaan ka wada hal qabiil ma degan dadka Soomaalida oo waqooyi galbeed degan iyo dadkan koonfur degan aan ka shaqeynaa nabadgelyada Soomaaliya way jireysaa waligeedna way jireysaa halkaana waxaa joogta xildhibaanadeena dawladda Soomaaliya waxay nooga baahan tahay Eritrea waxa way qof walba Eritrean wuxuu baxshaa 10% of tax pre-tax cashuurtu baxshaa halkaana joogna waxaan leenahay maalmo maxaa Soomaaliya maxay qabatay baarmaanka muxuu qabtay adi maxaa qabatay maxaa adi samaysay waa inaan ka fikirnaa marka waxa weeye canshuurteena nin walba income-kaaga intuu yahay can we do 2% of your income-kaaga ma siin kartaa askariga Soomaaliyeed oo mataqaana markuu dhinto think about it mushaarkooda la leeyahay inuu difaaca wadana rabnaa kama warq markuu dhaawacmo lugooda cid ka warqabaysa male anaa u maqan cid u maqan male wadanka Soomaaliya aan wada istaagno xildhibaanada iyo mataqaana nidaamka aan taageerno shakhsigu baxa wuuna baxa waxaan idinkaga codsanayaa waxa weeye Soomaaliya hal garab istaago wadankaas qaranka uu soo noqonaya maalin walba waan naxa asaageen marka aran dawladihiina la qaatay mataqaana 1950giina la qaatay xornimada oo naga hormarsan ya maanta wiilkii aan u mudaaharaadayna oo ku dhintay South Africa dhigiis wiilkii mataqaana dhagax lagu dilay oo cunug yariisa mataqaana dhagax ku dilay dhagax is that the kind of future we want ask yourself hadaa rabtid ina ilmaheen ay helaan Soomaaliya qurxoon oo nabadgelyo ku wada nool Soomaaliya oo qurxoon oo wada nool waxa qabsatay Soomaaliya oo horumar gaartay Soomaaliya ummadda wax la qaybsatay hadaa Soomaaliya jeceshay taageer waligaana Soomaali noqo Soomaali jecelo guul Soomaaliya الله خير النبات دين وحيرا شركه حسبنا الله خير النبات دين وحيرا شركه حفلة داية كولان كوحا وحنبار سياهاي حفلة داية كولان كوحكمات بوحنبار سياهاي وحاكو حرايسا حكمادا لكو بكارين حسوس دير باكو حاين دابان حسابادان وحاكو حرايسا حكمادا لكو بكارين حفظ النبادين وحاين دابا اللوغا ديغو مودانية مروية معمولية وحقارات دمان مودانية مروية معمولية وحقارات مدحدي شعب كميغارن ماذا شوي انتي ما قشيو انتي من كان غلطال سالان محبيو كالقعالو مليون كبادان مانكم منيو بحيو تقون من شالوغا ديغاي مارين وذا ديغا سوهو ساري موجاد علوس مديكتاي بيديحداي مانكاي قلبيغا سعدي يا محباي مغول مريا لابو موداني يا مرويو معمولي يا وحقارات مدحداي يا شعب كميغارن ماذا شوي انت ما غشيو انتي من كان غلطال سالان محبيو كالقعالو مليون كبادان maniyo baxiyo udgoon mansha looga dhigay marin wada dhiigu soo saaray mawjad culus midigta iyo bidixda iyo manka iyo qalbiga sacdiya muxuboy magool hooyo naga mulkiya mariya laba naga gudoon maafidii xildhibaan iyo soo dhaweyn gaxsanayda bid gacala iyo soo dhaweyn gaxsanayda bid galiliya farax gundheer gafa saaran yahay galiliya farax gundheer gafa saaran yahay angalastahaba iyo ubax geesahawga hilay xusuusi ku gaaran tahay taya gobanimaad taariikhdu gardaadinahay sood gobay lahayd genyo xildhibaanad gacaaltooyadeennoho genyo xildhibaanad gacaaltooyadeennoho gobay carays ciise gacantaada nooga qabo
عذرنا عرايس عيسى كرش عنب سعدي عذرنا عرايس عيسى كرش عنب عدون حل دبانad ciisibada gogantahay cadkagu wuxuu ku yaal carifin loo hubo wadani caaniyo abwahan caqilo wax gala Soomaalinimo cartamayo caqiida wacan cirabiya garasha dheer camiyuu yiqeen calanka Soomaaliyeed cawiyo waha calanka Soomaaliyeed cawiyo waha adna cadkooda tahayoon cad ku dahanay caras ciise kaarshe cindeegaga takuhay abwaan caanaho ciiddiisa hooyii calankiisa jecel oo cabiraadda maansada aan cidi ku gaarayn carays ciise kaarshaa caadil kaa abuuro cunuqdiisa tahay adi aniguna ciisiya sharaf ubax cayn bacayn iyo midabada casuustiyo anigu iyo ciisiya sharaf ayaan kugu cidaadee ayndhaweydba delayma tirin delka masaday oo abdaaniga oo dayay baa laygu diirayay candilaac shuuca oo kalu dayma leeyahay oo dowladnimadu waxay tahay dadkay haddan yara daarinsiiyo oo dayd weeye cadow laga dugsadoon cidi ku darayni oo waa dayd dirmada lagu gamood nabad ku darshooni oo waa dayd ninkii doonayaba daraja garay gabagabadii barnaamijkaasi xildhibaanada ayaa podiumka lagu soo dhaweeyay iyadoo la dardaarmaysa jaaliyadda Soomaalida ee gobolkan Minnesota mar hadal ay ku soo jeedisay oo ay tiri waxaad imaan kartaan wadanka Soomaaliya aniga ayaa idin soo dhaweynaya mid ayaa idin soo dhaweyn kara mana baqi kartaan Soomaaliya wax laga baqi karana ma jirto waa meel safe ah iyadoo runtii ku baraarujinaysay jaaliyadda Soomaalida ee xafladda ka soo qayb galay aad iyo aad baan idin jeclahay reer Minnesota aan qiimaha iyo qaayaha iyo waqtiga qaaliga aad ay siiseen ama aad reerihiina iyo shaqadii iyo waqtigiini maxay aad u soo dhaafteen saad ii soo dhaweysaan ma fili karo waxaan idinku abaalgudi karaa adinkoo wadankii ku soo noqdo magaaladii Soomaaliya Muqdisho aan hal idinkugu imaado airportka oo aan idinka qaado adinkoo aan katiifad guduudan idin fidinayo hadduu Ilaahay raali ka dhigo walaalayaal waxaa jirto cabsi badan aad qabtiin oo ah Soomaaliya laguma noqon karo xaqiiqdii Soomaaliya cid walba ku noqon karto cid walbana sida inta ugu nooshin si ka macaan baad ugu noolaan kartiin sababtoo xornimo weyn baa taalo nabadgelyo ayaa taalo isjacayl baa yaalo dadkii oo ku faraxsan inay dadkoodii soo noqdaan oo garabkoodii istaagaan ayaa taalo xaqiiqdii qofkii rumaysan lahaa iyo qofkii isdhihi lahaa qoftaan meesha unba idin wadaa anaa idin dhahayo 100% ku soo dhawaada Muqdisho imaadana anaa airportka idinku sugaya hadduu Ilaahay raali ka dhigo walaalayaal Muqdisho kaliya ma ahan Soomaaliya meel walbaba nabadgelyo ayaa ka ifayso isjecel dadkii oo isjecel oo rabaan gacmaha inay isqabsadaan waxaan rajaynayaa Soomaaliya mid ah inaan arkno waxaan rajaynaynaa Soomaaliya isku caloolsan oo wax dhibaato ah iyo wax qalaaf ah aan ku jirin waxaan idin ballan qaadeynaa haddaan nahay xildhibaanadii inaan mar walba ka shaqeyno wanaaga iyo isku imaanshaha iyo isku soo dhawaashaha Soomaaliya meel walba ay joogto hadduu Ilaahay raali ka dhigo walaalayaal gadaal baa laga haystaa waan burqan lahaa xaqiiqdii waxa idin dareensiin lahaa macaanka ay leedahay wadannimada waxa idin dareensiin lahaa xaqiiqdii macaanka ay leedahay wadannimo
sababtoo meel aan idinka dhehaynin baasabor itus, meel aan idinka dhehaynin aqoonsigiina na tusa, meel aan idinka riixaynin oo adinka aad ka tihiin boos, waa waddankaaga hooyo, meel kale ma ahan xaqiiqdii. walaalayaal 22 sano ayaa tusaale noo ah maanta, 22 sano ayaa tusaale noo ah waxa naga burburay iyo waxa naga baaba'ay oo marnaba uu noo soo noqon karin. qofka aqliga leh wuxuu xasuusan karaa maanta caruurta banaanka joogto oo ku dhibaataysan xaqiiqdii. ha fiirinina maanta adinka awoodda iyo quruxda aad meeshaan ku leedihiin, gadaal u fiiriya caruurtiina. imisaa xabsiyadii ku jira caruur, imisaa dhibaataysan, imisaa ilmo aad dhashay lagugu xukumayaa. Soomaaliya cidna kuguma xukumayso, caruurtaada daa iskale. cunug aad dhashay ma dharbaaxi kartid, lamana hadli kartid xaqiiqdii, laakiin gurigaaga hooyo sidaa doonteeda ka yeeli kartaa, ayadoo ay tahay diinteenna iyo dhaqankii waalidiinteenna nagu soo koriyeen. hadal badan ima hayo, farxaddii ayaa iga badatay. waan idiin mahadinayaa, aad iyo aad baan idinkugu mahadinayaa. hobolada aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahadinayaa. idinkana waxaad iga taabateen meel aad iyo aad u fog, xasuus aad iyo aad u fogna waa i dareensiiseen. waana idiin mahadinayaa 100%. ma aha markii ugu horeysay ee magaaladan Toronto si weyn loogu soo dhaweeyo xildhibaan Sacdiya Carays Ciise Kaarshe oo ah gabadhii ugu horeysay ee noqoto xubin ka tirsan golaha shacabka qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Canada. xildhibaan Sacdiya Carays Ciise Kaarshe ka sokow bulshada Soomaaliyeed waxa aad ugu weyn magaca ay huwan tahay iyo marka uu soo gaaro dhagahooda. jamhuuriyadayna iyo jamaca Soomaalidu warkii joogtada ahaa idiin soo jeediyay xalay jiifmaan alladin jareexana igu mataal jirana meel iga mahayn jibaad olol baan ku jiray. haddaba haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan Toronto ayaa si diiran u soo dhaweeyay xildhibaan Sacdiya Carays Ciise oo fasaxeedii golaha shacabka qaranka ku timid magaaladan Toronto si ay uga warbixiso hawlaha wax ku oolka ah ee golaha shacabka qaranka Soomaaliyeed uu ku guuleystay iyo inay dhageysato guuxa dadweynaha oo noqday mid ahmiyadda koowaad u ah hay'adaha sharci dejinta ee golaha shacabka qaranka. Faaduma Cali Nagruma oo ahayd hobolladii qaranka ee Waaberi ayaa ugu horeyn ka soo jeedisay kulankaasi hadallo soo dhaweyn iyo suugaan isugu jira oo si weyn uga hadashay kaalinta firfircoon ee xildhibaan Sacdiya Carays Ciise kaga jirto dhismaha iyo horumarka dalka. xafladan quruxda iyo qiimaha leh, walaal qaali ah, gabar qaali ah, xildhibaanad qaali ah, xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya Sacdiya Carays Ciise Kaarshe. Sacdiya oo ka mid ahayd reer Toronto haddana u ah madaxda reer Toronto u fadhida Soomaaliya, oo annaga ay sharaf noo tahay inaan kugu soo dhaweyno halka kan eedo
anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca fanaaniinta waa beriba waxaan ku leeyahay I am with you waxa weeye waa gabadhayadii waxaan leenahay waxaanu nahay culummadii fankan ka jooga caawa oo alla u naxariisagii aabbaha ka mid ahaa marka waxaan ku leeyahay si gaar ahaaneed oo kaliya laaba sacdiya soo dhawow waxaa sharaf iyo maamuus muran gabdhihii isku soo barida xafladdan oon leeyahay waa mahadsantihiin waxaan idhi sacdiya caraysey xildhibaan soo dhawow sacdiya ina caraysey waxaa tahay qof culusoo eedda caadi ma atihid kadibna waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey xaliimo jinni boqor oo uga mahad celisay xildhibaan sacdiye carays ciise sida weyn ee goor walba ay niyadda ugu hayso jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Canada safarka aad noogu timi waa salaaman tahay oo saad u aragtaba hablahan saydka ka fadhiya saaxiibo wanaagsan dariskaaga sare ahaa ayaa suurageliyay xafladan lagu sallaxay waxay inay ku wada saacidaan bay u sarakaceen السلام عليكم سعدي الكسو دغو قولها وان ممنوعي مانكيغا waa ka jaray ee sacdiya mas'uul weeye madaxa la dhaafi karin oo cadar muhiim weeye oo waa mid la isku hubo maxubadoodii ayaan meesha aan ku imi ma sha Allah iyo macaanay ku soo dhawow gabagabadii kulankaasi waxaa warbixin looga dhageystay xildhibaan sacdiye carays ciise oo marka hore si weyn uga mahad celisay guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto sida diiran oo ay goor walba u soo dhaweeyaan dumarka reer Toronto oo aan ahay qof aad uga dirsan qayb ka mid ahna aan ahay mar walbana farxad iyo dhiiri ay gashaan mar walba aan u imaadana waqtigooda qaaliga ah ay siiyaan aad iyo aad baan horta idinku mahadinayaa waa mahadsantihiin sababtoo ah waxaan filayaa maalintan soo gala magaalada cid ii kala harto ma jirto aad iyo aad baan aniguna idin jeclahay ama aan meel walba aan joogana aan idin xasuustaa waxaan filayaana meel walba aan maraya ama wax walba aan qabto ama qayb walba aan ka qaato maanta baarlamaanka aan u fadhiyo uma fadhiyo qabiil oo kaliya ee waxaan u fadhiyaa gabdhaha Toronto ku nool meel kasta ay joogaanba sababtoo ah ayaga igu dhiirigeliyay ayaga garab igu siiyay inaan halka fadhiisto oo aan matalo xaqiiq ahaantii waxaan u maleynayaa markii hore waxaan ahaa gabadha kaliya reer Toronto ah laakiin hadda waxa igu soo birtay walaashay ubax taaliil waxaa caado u ah shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada in mar walba ay soo dhaweeyaan madaxda qaranka Soomaaliyeed ee soo booqata dalkan Canada iyo mas'uuliyiinta iyagoo halkan ka tagaya ee ku noqonaya dalka hooyo Sacdiya Carays Ciise waxa ay ka mid tahay gabdhaha farakutiriska ah ee ka tirsan golaha shacabka qaranka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda waqooyiga Amerika Muxudiin Jaamac telefishinka qaranka Soomaaliyeed Toronto xildhibaan sacdiye carays ciise kaarshe waxay qayb ka ahayd xildhibaanadii ka qayb galay shirkii New Deal-ka iyadoona safaro shirarkaas la xiriira ku gaadhay dalka Turkiga isla markaana waxay kulamo la qaadatay mas'uuliyiin badan oo ay ka mid ahaayeen safiirka dalka Canada dhinaca kale xildhibaan sacdiye waxay booqashooyin gaar ah ku gaadhay safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay wadamada Amerika, Yurub iyo Imaaraadka iyadoo u koorgalaysa sida ay u shaqeeyaan isla markaana kulamo la qaadatay safiiradeennii sidoo kale xildhibaan sacdiye waxa ay taageerooyin iyo booqasho la wadaagtay qaybo ka mid ah dadka tabaalaysan iyo kuwa aan lixaadkooda dhammayn ee ku dhaqan magaalada Muqdisho halka ay magaalada Kismaayana deeqa kala duwan gaarsiisay xarumaha lagu xanaaneeyo caruuraha agoomada iyo isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo oo isagana ugu deeqday agabka jiifka deeq ka koobneed 50 xabo oo joodari ah ayaa waxaa isbitaalka magaalada Kismaayo ugu deeqay xildhibaan Sacdiye Carays Ciise oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya goobta deeq wareejinta waxaa goobjoog ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Jubbaland Mudane Caydiid Suleymaan Xaashi gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni gudoomiyaha degmada Ibraahim Yuusuf Timajili agaasimaha isbitaalka Xuseen Sheekh Qaasim iyo odayaal dhaqameed ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha
cisbitaalka xuseen sheekh qaasim isagoo kala wareegay joodariyaasha ay soo gaarsiisay xildhibaanad Sacdiyo Careys Ciise. deeqdan isbitaalka ay Sacdiyo keentay oo aanu kala wareegayno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay deeqdan inayna soo gaadho deeqdaas furaashada oo ah mid isbitaalku aad iyo aad ugu baahan yahay walaashan Sacdiyo xildhibaan Sacdiyo waan ka gudoonnay deeqdii furaashada ahayd ay isbitaalka keentay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa waxaana ballan qaadaynaa furaashadaas walaashan isbitaalka ugu deeqday sidii loogu talagalay in looga faa'iideysan doono isbitaalku waa referral hospital wuxuu u baahan yahay resource fara badan hadduu soo kabanayaa cid kasta oo wax ku taraysa ama joodari ha noqoto dhankooda waxaa iyaguna boogaadiyay deeqda ay keentay xildhibaanad Sacdiyo Careys Ciise gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timijilic iyo kan gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni. deeqdaas gabadhu bixisay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa qof kasta oo muwaadin oo reer Jubbaland leh waxaa laga rabaa kulli wixii uu qaban karo inuu qabto dalku dib u dhismayaa isbitaalku waa bilow hadduu maaragtay soo kabanayaa dhibaatadii 20 iyo dhowr sano marka waxaan rajaynaynaa inay cid waliba wixii ay ku caawin karto ku caawiso dadka bukaanka waa isbitaalkii kaliya hadda Jubbaland oo shaqeeyo oo maaragtay meel kasta looga yimaado marka insha Allah xildhibaane aad baan kaaga mahadcelinaynaa runtii waa wax lagu farxo weeye waa wax u baahan ku dayasho waa wax u baahan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Jubbada Hoose inay ku daydaan waxaa kaloo mudan inaan xuso Sacdiyo waxay ka mid ahayd markii la aasaasay Jubbaland inay ahayd 45kii xildhibaan ee ugu horeeyay ee u yimaada soona booqda dhiirigeliyana dhisitaanka iyo caga ku istaaga Jubbaland runtii taariikhda xusaysa qofku haddii wax yar oo wanaaga uu dalka iyo shacabka u qabto taariikhdu wax xusaysa sidoo kale waxaa u mahadceliyay wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dawladda Jubbaland Caydi Suleymaan Xaashi isagoo sheegay in ay ku dayan doonaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan community-ga reer Jubbaland ama dibadda joogeen ama gudaha joogeen waxaa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan waxtarka bulshadooda waliba isbitaalka guud oo hadda soo kabasho ku jira ilaa iyo meesha u dambaysa Jubbaland oo amaanta referral hospital wuxuu u baahan yahay gacan weyn in laga geysto oo cid waliba isxilqaanto aad baan uga mahadcelinaynaa deeqda Sacdiyo Careys Ciise waxaa kaloo halkan aan uga mahadcelinaynaa wali xusuusanaynaa jaaliyadihii deeqda ka geystay oo jaaliyadda North America ugu horeysay jaaliyadii Australia ee iyaguna sariiraha iyo qalabka ku deeqay jaaliyadii Bantu community ee iyaguna reer North America ee iyaguna halka deeqda keenay cid kastoo isbitaalkan wax ku tartay bulshada wax ku tartayna waa la xusuusnaan doonaa waa la xusi doonaa gabagabadii waxaa madasha ka hadashay xildhibaanad Sacdiyo Careys Ciise oo sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay deeqda ay soo gaarsiisay cisbitaalka magaalada Kismaayo iyadoo sheegtay in aysan intaan ku ekeen doonin waxaan aad iyo aad aan uga fikiray ama aan u jeclaystay deeqdu way badan tahay maadaama ay tahay deeqdii ugu horeeyay oo aan u garto isbitaalka anoo jecel waxyaabo badan inaan sameeyo hadduu Ilaahay raali ka dhigo oo aan ku goob joogo maadaama aan ahay xildhibaanad federaal ee waajibna ay tahay meel walba inaan deeqda gaarsiiyo wixii awoodeyda ah laakiin maanta aan xaadir halkaan aan ku ahaa maalin dhaweed markaan imid oo 10 casho aan joogay aan aan aad u raadiyay baahiyada ugu waaweyn oo maanta ay jirto walaalkay barsaabka Kismaayo gudoomiyaha gobolka oo ii sheegay isbitaalkan inay jirto deeqo badan oo u baahan yihiin anna aan jeclaystay inaan ka bilaabo bal meesha dhinaca dhigi lahaayeen bukaanka inaan ugu deeqo joodariyadan oo ah 50 xabba ah hadduu Ilaahay raali ka dhigana aan badin doono deeqdeeda cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waa kan kaliya ee ka dhaxeeya ummadda Jubbaland inkastoo la dayactiray qaybo badan oo ka mid ah haddana baahidiisu waa mid weli taagan dhanka kale waxay xildhibaanadu deeq raashin gaarsiisay qoysas isugu jira danyar naafo iyo waayeel kuwaas oo ku dhaqan deegaamada xaarxaar iyo Jalamo hoos yimaada degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal Puntland Soomaaliya iyadoona sheegtay inay dhib iyo dheef la qaybsanayso dadkeeda Soomaaliyeed ayna u shaqaysa iyaga
maanta oo ah maalin aad iyo aad iigu weyn oo farxad ah sababtoo ah waxaan soo booqday tuuladii xaarxaar oo aan weligay ku hamin jiray inaan imaado aanan la qaybsado dadkayga dhereg iyo gaajo iyo wax walbaba maantana ay tahay maalintii ciidda oo fidradii dadkii oo idil ay u baahan yihiin marka maanta waxaan niyeystay inaan u yara qaybiyo fidrada raashin yar oo aan mar walbana aan jeclaa inaan soo gaarsiiyo wixii awoodeyda ah taasoo ah taan ku dream gareynayay ilaahayna ii fududeeyey waana ku faraxsanahay inaan dhexdiina joogo oo aan geedkan weyn aan idinla fadhiyo mar badanna aan idinla fadhiisan doono hadduu ilaahay raalli ka dhigo maalin rabadaana weeye waxaayna wacay oo isu keenay gabadha xildhibaanada ah ee ah Sacdiya Carays iyo Caasha Geelle iyo Ruqayya Qatufe gabdhahaas waxay inoo keeneen raashinkan baa Sacdiya keentay gabdhaha kalena waa la soo kaxeeyeen way inoo keeneen haddii raashinka inaanu qaadano wixii ay ila yiraahdaan gabdhaha ka qaadano dabeedna aynu u ducayno ismaca salaamayno xildhibaan Sacdiya Carays Ciise Kaarshe oo kamid ah baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Buurtinle xilli ay xildhibaanadu gobolada degmooyinka iyo deegaamada Puntland ku mareysay safar la xiriira dhamaystirka iyo ku horgelidda qoraallo ay ka sameynaysay baahiyaha iyo xaaladaha deegaamada iyo degmooyinka kuwaas oo ay hore ugu bandhigtay baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya soo dhaweynta xildhibaanada ayaa waxaa ka qayb qaatay maamulka degmada Buurtinle nabadoono culimaa u diin ururada haweenka iyo dhalinyarada degmada Buurtinle xildhibaan Sacdiya Carays Ciise Kaarshe oo haatan ah musharax u taagan booska ay joogto ayaa howlka shirarka ee degmada Buurtinle kula hadashay dhammaan dadka reer Buurtinle waxayna soo bandhigtay qaybo ka mid ah waxyaabihii u qabsamay inta ay xilka haysay gudoomiyaha degmada Buurtinle Maxamed Maxamuud Axmed Buurdibi ayaa soo dhaweyn kadib sheegay inay ka reer Buurtinle ahaan la xisaabtamayaan xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo matala dowladda Puntland waxaan u gudbayaa munaasabadan oo aynu maanta ku soo dhaweynayna xildhibaanad Sacdiya Carays Ciise Kaarshe oo aad taqaanaan aabaheedna uu ahaa abwaan Soomaaliyeed dhammaan geyiga Soomaaliyeedna laga yaqaan inta Soomaaliga looga hadlo xildhibaanadu waxay soo gaadhay degmada ruuxaantii xildhibaanada dowladda federaalka annagu haddaan ka degmo ahaan nahay waa la xisaabtamayna soo dhaweyntu ma ahan ehelnimo keliya wixii aad shalay qabatayna waa lagula xisaabtamaya waxaad kaga duwan tahay haddii aad xasuusatay oo aad tiri bulshada reer Puntland xilka u haya oo xildhibaanad waxaan ahay Puntland ama gobolada tan waad ku mahadsantahay awal sanadkii hore waxaan u malaynayaa ismada ogolaanshaha lahaa laakiin hadda ururkii bulshada iyo qaybihii kala duwanaa iyo odayaashii iyo waxgaradkii baa codka wax ku leh konton iyo kow qof baa codaynaysa dabcan deegaankii weyn iyadoo haddana beel ay tahay waxaanu leenahay annagoo reer Puntland waanu ku soo dhaweynay sida aad noo xasuusatay oo aad u garatay inaad deegaan ka timid oo ka soo jeeday sidaas darteed baan haddana annagoo shuruud kugu xirin mar labaad waxaanu ku leenahay codkii baanu ku siinay Caasha Geelle Kane gudoomiyaha ururka haweenka degmada Buurtinle ayaa dhankeeda ka dhawaajisay inay ka urur haween ahaan ku faanayaan xildhibaan Sacdiyo sabab la xiriira waxqabadeedii Sacdiyo meesheeda inoo joogtaa meeshii Carays Ciise Kaarshe inoo joogtaa dhammaan Soomaali bay u joogtaa dhammaan reer Puntland bay u joogtaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay bay u joogtaa intaas waxaan ku darayaa Sacdiyo ku soo dhawow gacmo furan walaalnimo kalsooni jacayl lagu qabo sida horeba lagu sheegay waxaan u malaynayaa maanta waad aragtay dadkaagii iyo dalkaagii sida lagaaga jecel yahay oo lagaaga baahan yahay qabadkaaguna mid qarsoon ma ahayn waanu la soconay waxaad ka waxqabad badnayd oo ka horeysay oo maaragtay aad ka dadaal badnayd nimanka ragga ah oo odayaasha ah oo xildhibaanada ah oo aan u tirsanay sidoo kale nabadoonadii samadoonadii iyo aqoon-yahanadii ka hadlay munaasabadda soo dhaweynta
ayaa caddeeyey inay mar labaad doorteen oo codkooda siiyeen xildhibaan sacdiyo ayna soo dhoweynayaan. soo dhawow gacalo ku soo dhawow nuuna ku soo dhawow waxaadan halmaami karin baa meesha tan yaalla annaguna sidoo kale sidaasaanu leenahay jiil kasta oo dadku ka kooban yahay ummadda soomaaliyeed oo meesha fadhiyada ka kooban tahay waa ay mahadsan yihiin gacalo iyo wanaag bayna dadka u muujiyeen annaguna haddii alla imaynta nafta nagu jirto waa xusuusnaanaynaa deegaankaagii dadkaagii baad u timid marti kuma tihid midda doorashada iyo hanaankeeda hadda doorarkii la soo dhaafay sidii wax lagu dooranayay haddee mudnaanta raas baa iskale annagoo isku beel baan nahay marka waa la iska qabaa runtii dadka federaalka naga jiray fikirka laga haystay qof mudan in ay mas-uuliyadda mar labaad soo doorto weeye. xildhibaanad Sacdiyo Carays Ciise oo ka mid ah xildhibaanada waqtigoodii sii dhammaanayo ee dowladda federaalka Soomaaliyeed aan rajaynaynaa inay ka mid noqoto xildhibaanada cusub leeli doono August 2016 insha Allah taala waxaan leenahay ku soo dhawow degmada Buurtinle oo deegaankaagii ah oo dadkaagii joogo oo aad lagaga jecel yahay iyadoo lagu soo dhaweynayo waxqabadkaagii muddadii koobnayd oo aad xilka haysay wixii aad ka qabatay wadada wadaagsin wixii aad ka qabatay deegaanka Gacnafale wixii aad ka qabatay gobolka Mudug waxa aad ka qabatay degmada Buurtinle wixii aad u qabatay ururka haweenka iyo saad ugu qareebi jirtay dhammaan waxa arrimahaas oo iyadoo laga mahadcelinayo waxa lagu leeyahay soo dhawow ogeynin ama sida wadaad saahid oo suurad marinaya oo arlaayiga saqafo sharciga saa u fidinaya Sacdiyaanu wada goohaynaa mana samoweyno Sacdiyaanu wada goohaynaa mana samoweyno sanadkaadna waa dooran tahay saatiidankii yeelay danahoodu goortoy dhowdahay kuba daadaalane derbi bay abraaraan iyo meel aan duxi ka raacayne danta qaranka qof aan doonahay madax u doortaane hayeeshee Sacdiyo waa weli daahiro ee basoo diray warudaaya iyada cilmiga baalis ahay Sacdiyo oo ina kala joogta federaalka Sacdiyo soo dhawow in badan baa kuleena waxay ka horreeyay odayaal badan oo si fiican u wada hadlay iyo abwaan kale oo isna tirinayay dhammaanna way ku mahadsan yihiin hase ahaatee waxaan ka tagnay halkan maadaama xasuus leedahay Carays Ciise wuxuu ahaa nin caan ah nin aan gabayadiisa aad u jeclaa ahaa waxaan ka tirinayaa baryar bismillaahir rahmaanir rahiim hoyaalayay 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 hoye hoyaalayay 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 hoye hoyaalayay 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 hoy gabayga waa nin garanaya iyo ninu dulguuxaye iyo ninu gadaal uga imaan xaaja garanayne saddexdaasu garaashiyo aqoon uma gudboonaane saddexdaasu garaashiyo aqoon uma gudboonaane anna hadalladan goobayo baan goobta kaa caddayne gulnimada dadwaysaga egyahay gobiina yeelkeede anse inaan garaadada ku jiro baydin garansiine magaraad xumiye waa xishood waxaan la gabshaye horta inaan isgaaranaan murtida uga gabyayaye waynoo gadaal dhigay tixdiila gudboonayde muuse gaabagu tirshiyo gacalaadu doonay gabdii uu khaliif kaga hadliyo murugtiiso gadhay iyo cali afyare siduu markii gooni uga yeela Sacdiyoy garaadnimaan lahayn gulma dheelmadoye Sacdiyoy garaadnimaan lahayn gulma dheelmadoye Sacdiyoy garaadnimaan lahayn gulma dheelmadoye Carays Ciise gooboduu tirshayoo galka ku weryayey gobaad caaneed iyo markuu gacab tilmaamayey iyo maantay goobtaan fadhiyo waa u kala gaare gooniyo faraxu margedi wargeraare iyo gooniyo faraxu margedi
انت صوت الآخر جدان قال وذقنايو سيدك قدسانه يوكسي ugu dambeyntiina xildhibaan Sacdiye Carays Ciise Kaarshe ayaa sheegtay in uusan ahayn safarkan midkeedii ugu horeeyay oo horey booqashooyin badan oo ay ugu korgalayso xaaladaha degmooyinka iyo deegaamada Puntland u soo martay ayna qoraal ka sameysay waxyaabihii ka jiray deegaamada isla markaana ay horgeysay baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ilaa haatan ay wado booqashooyinkii iyo waliba xog ururintii reer Puntland waxaa idin sheegayaa socodkayga maanta kaliya ma aha horena waa idinku yimid waxaan ahayna aniga xildhibaanada kaliya oo 61ga Puntland maanta u taagan gabadha kaliya oo ugu horeyso oo soo martay socod ku soo martay gaalkacyadu Boosaaso ayaan ahay waxaan shalay ka soo degtay diyaaradda koodii duurnimo anigoo dumar ah oo aeroportkiisa naga soo degtay aan u dhaqaaqay oo aan 50 kilomitir bay u jirtaan u maleynayaa gacmo fale gaalkacyo oo aan baabuur ku maray oo aan ku soo noqday xalay markaan seexdanay saaka aan soo ambabaxay oo aan qalbiga aan ku haystay dadkaygii shacabkaygii walaalahay inaan wax la qaybsado aan u tago walaalayaal wax qabadku wax isa siin ma ahan laakiin waxay tahay qofka wax la qaybsado geedka la fadhiisto oo oday iyo dumar iyo haween iyo ciyaal la qaybsado oo yiraahdo waxaad ku nooshiin baan rabaa inaan arko aan idin la cuno idin la cabo aan idin la fadhiisto kaaga waxa la yiraahdo wax qabad inta kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa keenayo wixii awoodayda ahaana waa sameeyay walaalayaal socodkaan maalinta maray waxaan ka qoray qoraal oo aan ka qoray baahida ka jirta Puntland walaal ma fadhiisanin qoraalkaygii ilaa hadda waa hayaa waxaan ka aqriyay baarlamaanka oo aan ka sheegay magaalo walbaba iyo waxa ay u baahan tahay iyo waxa ay rabaan markaana waa xasuustaa 3 sano ayaa ka soo wareegatay waagaan hadda ma yihi qof socdaalkiisa ugu horeeyo waxdoon ah ee waxaan ahay qofkii shalay shaqada hayay oo raba hadana inuu dhameystiro oo rabana inuu kursiga uu shalay ku fadhiyay haddii uu Ilaahay ii kaso iyo haddaad adinka isiisiin aan ku fadhiisto haddii Ilaahay way jirtaa kun iga fiican maanta anaa lay arkay laakiin 100 gabdhood oo aan wali la arkin oo iga fiican way jiraan oo ay u baahan yihiin kursiga inuu maanta ayagana ay ku fadhiistaan laakiin waxaan leeyahay maadaama shaqada aad ii dhiibateen ay qabya tahay inaan dhamaystirna aan jeclahay aan guulo ka gaaro inaan ku soo noqdo kursigaygii gacanna aad igu siisin garabna aad igu siisin haddii Ilaahay TV-ga caalamiga Puntland magaalada Burtile hadaaq boraatahayo tallaabtaan la heli karin adoo ciiddii hambaday dhaqsaba waa ku hinjisay hooyadu waa lama huraan afkaan ku hadalniyo hanaankeeniyo hubqa